meel maqaayad oo fadhiyay waa lagu imaaday waliba qayb sare inay aheedaan jeclahay saddex baaloota lagu gamay wallahi dad dhalinyaro iska bulshaabiyo social oo iska ahaa ummadda ma dhibaateeyo I don't know waxa ilaa is taxabul loo iska gamay saacadu markay ahayd abaara 9 fiidnimo waxaa magaalada Muqdisho lagu dhaawacay Bilaal Bulshaawi oo inta badan Soomaalida u taqaano madaxweynaha TikTok aadna markaasi uu isticmaalo dadku ugu yaqaanaan baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok ay Soomaalida ku wada kulanto waxa uu ku jiray markii la dhaawacay mid kamid ah maqaaxiyaha ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana dhaawacay sida la sheegay kooxo markaasi bistoolada ku huwaysan oo heebtooda la garan waxaana markaasi la fadhiyay wararka qaar sida aan ku helayno wiil ay saaxiibo yihiin durbadiiba waxaa loo soo qaaday isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho oo hadda ku jiro waxa sidoo kale ehelkiisa oo inala waramay ay noo sheegeen in xaaladiisa caafimaad sidii hore ay ka soo hagaagayso oo hadda lagula tacaalayo isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho walaalkiis waan daqiiqado ka hor wareysanay ayaa ugu horeen waxaan wax ka weydiinay sida xaaladdu ay ahayd iyo qaabka falkan uu ku yimid iyo halka uu joogo marka ay dhacdadan dhacaysay Cabduqaadir waxa gaaray horta waa wax yar laakiin qaabka wax u dhaceen aniga goobjoog uma aheenin waxa wali soo sheegay inuu dhaawacmay dhowr xabad inuu ku dhacay marka hore la sheegay xaalad qofka inuu doomish joogan waxa waaye wixii raba loo sheegaya Soomaalidana wixii seeraban iska qaaday laakiin xaaladiisa hadda waa 100% way fiican yahay qadar yar ayaa gaartay wax u qoran ayayna ahaayeen ma dhaheeno maxay u gaartay yaagi geystay laakiin muhiimaddu waxay tahay walaalkeen in oo hadda wanaagsan yahay wixii kale talaabaan laamaha amniga shaqo ku leh marka insha Allah taala xaaladiisna waa 100% taas ma ogaan karno marka taasna waxay u taalaa magaaladan dadka amnigooda maamulka u hayay u taalaa meel maqaayad oo fadhiyay waa lagu imaaday waliba qayb sare inay aheedaan jeclahay saddex baaloota lagu gamay meesha uu joogana waa area oo safe inta badan sida Soomaalida dadka Muqdisho jooga u yaqaaniin laakiin Allah safe naga dhigi kare xaaladiisa laakiin walaalkii alxamdulillah waaye duco kaliya oo naga rab nooga baahan yahay ogaalkiisa waa taam waxa ku dhacay iyo wixii la rabeynay alxamdulillah waa kaafi kala dheeri wallahi dad dhalinyaro iska bulshaabiyo social oo iska ahaa ummadda ma dhibaateeyo I don't know waxa ilaa is taxabul loo iska gamay خلاص marka alxamdulillah ma qofka kala geeska loo fadhiyay xabadii saddexaad ugu gudubtay ajirka u dhacday marka yarkaas aad u daran Allah cafiyo yar guri la degin oo ahaayo asiga cusubnisay ahaayeen marka xaaladiisa la hada waxa ka sheegno waa dimbi waayay dimbi fa la warigo qadira aan ku dhacday khalaas alxamdulillah markii aad fiiriso agagaarka isbitaalka Digfer aad ayaa loo soo buux dhaafiyay waxa sidoo kale halkan ku sugnaa ehelka Bilaal Bulshaawi oo Soomaalidu inta badan ay u taqaan madaxweynaha TikTok iyo sidoo kale dhammaan dhalinyarada ay ku saaxiibeen dhanka baraha bulshada Faaduma Cabduqaadir hada TV-ga dalsan magaalada Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta